Unku salaamay daawada ku soo dhow muuqaalka maanta oo kaga hadli doono bridge-ka jacaylka. Bridge-ka jacaylku waa meelaha loogu dalxiiska iyo booqashada badan yahay dunida. Waxaana waqtiyada dambe aad u sii dhiirigeliyay isgaarsiinta iyo xiriirka bulshada oo sii batay. Bridge-kan waxaa booqda malaayiin qof oo dadka isjecel ee dunida ku nool ah, kuwaas oo meelo aad uga durugsan uga soo xayaamay booqashada bridge-kan. Dadka qaar ka mid ah waxa ay booqdaan iyagoo ka barakaysanaya, waxayna aaminsan yihiin booqashada bridge-kani inuu xoojinayo xiriirka ka dhexeeya lamaanahan. Bridge-kan hore loogu magacaabi jiray Leo Bondisire waxa uu ku yaalaa magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska, waxaana la dhisay bartamihii qarnigii hore. Hase yeeshee sanadkii 1992 ayuu si rasmi ah u noqday bridge-ka jacaylka ee sida batalaalo oo kale loo booqdo. Bridge-kan waxaa 3 sano ka hor mar qura uu qabsaday indhaha caalamka kadib markii dowladda hoose ee magaalada Paris ay fulisay hawlgal lagaga furayo 1 milyan oo quful oo ay ku xidheen dadka isjecel soo booqday, kuwaasi oo xus iyo ka barakaysi. Arrintaas ayaa warbaahintu xilligaasi aad u buunbuunisay, waxaana taasi sababtay in dad badan oo dhalinyaro isjecel ay moodaan goob looga barakaysto jacaylka, laguna ilaaliyo sida dhaqanka lamaan kastoo jacaylku ugu dul xidhaya ayaa ku dhisan jiray hal quful ay wada wadaan, kadibna waxa ay furihiisa ku tuuri jireen isla webiga hoosta bridge-ka maraya. Qaabkan ayaa dad badan aaminsan yihiin haddii ay sameeyaan in uu nabadgeliyo jacaylkooda iyo xiriirkooda uu ka nabadgeliyo duruufo kasta oo ku xeeran, isla markaana sida qufulkan uu xidhan yahay uu uga xidhnaan doono faragelin kasta oo ku saabsan xiriirkooda la soo farageliyo. muddo yar 10 sannadood gudahooda ayaa ay goobtan isku beddeshay xarun dalxiis oo sanadkii ay booqdaan malaayiin dalxiis ah. wax soo saarka dhaqaale uu soo kordhiyay awgeed ayaa waxay dowladda hoose ee Paris ku samaysay ballaadhin lagu weyneynayo goobta qufulada lagu xidho, oo waxa loo sameeyay biro u gaar ah qufulada si ay lamaanuhu ugu xidhaan, isla markaana ay ugu fududaato ku xidhitaanka qufuladu. maalinba maalinta ka dambaysa ayaa ay sii bateen ilaa heer ay gaadheen xaddi aan la qiyaasi karin oo halis ku keentay dhismaha bridge-ka. waxaana sida awgeed dowladda hoose sanadkii hore si degdeg ah uga howlgashay laguna gurmaday bridge-kan oo ku dumi gaadhay culayska qufulada ku xidhan awgeed. daawade waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada.